aragti wadaag ku saabsan caymiska shaqaalaha iyo dadweynaha Kaaliya Care oo ay iska kaashanayaan shirkadda caymiska ee Baraka iyo waliba shirkado kale ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Mashruucan oo loogu magac daray PSPH waxaa soo qaban qaabisay shirkadda caymiska ee Baraka iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen shirkadaha ganacsi ee private sector-ka iyo waliba kuwa dawladda, waxaana loo sharaxay muhiimadda uu caymisku u leeyahay dadka Soomaaliyeed. Agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Xuseen Cali Sow ayaa ugu horeyntii goobta ka hadlay. markaad insurance company aad ku biirto aad tiraahdo anigii qoyskay waxaan ku biirnay insurance company waxaa laga yaabaa inaad dareento security ku saabsan inaad walwal badan aad ka qabin haddii lacala xaalad degdeg aad filaynin ama cunug guriga ku jooga xaalad ku soo korto xageen sameeya yaa waca yaa raadiya TV ma fadhiista inaad ka fikirin ayaa suuragal ah. markaan waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo kambaniyada waaweyn ee dalka jooga inay laftooda ka fikiraan qaabka shaqaalahoodu maxaa la yiraahdaa u damaanad qaad lahaayeen caafimaadkooda. dunidu horumaraysaa waxaa xasuustaa anoo ka shaqeeya hay'adaha kamid ah ayaa contractiga waxaa ku jira haddii wax ku soo gaaraan intaad shaqeynayso anaga mas'uuliyad kuma lihin macnaha ayaga u shaqeysaa haddii wax kugu dhacaan ehelkaaga iyo qaraabadaada maxaa la yiraahdaa u doonanaysaa adeega caafimaad tii inay sii jirto xilligan 2022 anagoo joogno looma baahna in marka kambaniyada ka fikiraan shaqaalahaagi dhibaato kasta ku dhici karta asoo koronto xilliga koronto ku dhigi karta madaxa awgeed ayaa dhibaato loo gaarsiin karaa qalabka uu ku shaqeeyo waa maybe waxa waaye electronic dhibaato ka imaan karta. Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed SRA iyo waliba Liibaan Muxudiin Caalim oo asna ka socday ururka bangiyada Soomaaliyeed ayaa dhankooda ku amaanay shirkadda caymiska ee Baraka sida ay u soo qaban qaabisay barnaamijkani. marka wadan risk noocaas ka jiro Baraka inay intuu istaagto tiraado waa cover gareynayna xaqiiqdii waxay mudan yihiin in si gaar loogu mahad celiyo waan idinkaga mahadnaqaynaa insha Allah taala shirkadaha maanta oo ama bangiyada ha ahaadaan ama electronic ama maxaa lahaa whatever sectors ah ka kala socotaan waxaan rajaynaynaa message-ka inaan dib u qaadno la dhiirigeliyo shirkadaha noocaan ee wadanka u soo baxay ee rabaa inay dalkii dadka badbaadiyaan inay client ay helaan client-na xirka kama imaanayo anagoo naga dhex imaana. dambeynta waxaan rabaa inaan u mahadnaqo mar labaad iyo mar saddexaad shirkadda Baraka waxaa u jeedaa rag fara badan oo waaga jaamacadaha dhiganayna noo ahay senior oo goobta ku sugan oo meelo kale ka socdo iyo rag fara badan oo jaamacadaha aan soo dhiganay sharaf waa runtii in dad oo senior ku ah oo meelo kale ka socday dad jaamacadaha soo dhigateen institution kale matala inaa isku imaataan mar labaad mar saddexaad waa ku mahadsantihiin tiimka Baraka iyo ka soo qaybgalayaasha dhamaantiin barnaamijka kula ogaan insha Allah. Guraanadkii Saadam Xuseen Maxamed oo ah madaxa fulinta howlaha ay shirkadda caymiska ee Baraka ay qabato ayaa sharaxay ujeedada ay barnaamijkan ay u qabatay shirkadda caymiska ee Baraka Insurance. kulankan maanta wuxuu ku saabsanaa aragti wadaag ku saabsan in la isku keeno shirkadaha gaarka loo leeyahay si looga tashto caymiska shaqaalaha iyo dadweynaha. caymiskaasi oo ah caymis haatan wixii ka dambeeya la soo bandhigi doono ilaahay hadduu yiraahdo maanta wuxuu ku saabsanaa oo kaliya aragti wadaag iyo fikradaha ay qabaan iyo sida ay shirkaddu u shaqeyn doonto iyo sida barnaamijkaasi loo fulin doono ayuu ku saabsanaa ujeedka laga leeyahay caymiskaasi. sida ogtiin Soomaaliya waa wadanka kaliya aan lahayn caymis qaran marka shirkadda Baraka ayaa isku xilqaantay inay suubiso caymis bulshada oo dhan ay awoodi karto ayna ka soo qayb gali karaan iyadoona qiimo macquul ah loo suubin doono barnaamijkaasi. haatan waa bilow hordhac iraade waxaan jiri doono discussion badan ama aragti wadaag badan oo laga yeelan doono barnaamijkaasi. Cabdifataax Mumne 5 TV Muqdisho. Hello? Ha waan soo degay. Aabahayow may shantadaydi. maxaan la naxsanaa anigoo ku jira caymiska Baraka Insurance. maxaan la naxsanahay anigoo ku jira caymiska Baraka Insurance. maxaan la naxsanaa anigoo ku jira caymiska Baraka Insurance. alla waan jabi gaaray maxaa la naxayaa anigoo haysta caymiska Baraka Insurance.
la naxsanahay anigoo ku jira shirkadda caymiska ee Baraka Insurance. waxaan la naxayaa anigoo haysta caymiska Baraka Insurance. hanixin adigoo ku jira caymiska Baraka Insurance. Hanixin intaad ku jirto shirkadda caymiska ee Baraka Insurance. hanixin adigoo ku jira caymiska Baraka Insurance. hanixin adigoo ku jira caymiska Baraka Insurance. hanixin adigoo haysta caymiska Baraka Insurance. hanixin adigoo haysta caymiska Baraka Insurance.